عمها dadkaygo runta dhabada laga diro aka agarane ciidena hodanka mawsara kanayo beeraha masaracna عمها dadkaygo runta dhabada laga diro aka agarane ciidena hodanka mawsara kanayo beeraha masaracna بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا لهانتي بدأ وضيال ملك استاجوكتان كسو دوادا برنامج كان بيراها تلفزيون كقرن كجمهورية الصومالي لان وحلي قناة قلات كدعوتان تلفزيون كقرن كصومالي لان برنامج كا وعن كوبو قندونا بيرليدا ديجان كا قبل كجبلي يو ديجان كعرب سيابا كسو دوادا برنامج كا daawadayaal imika waxa aan soo gaaray Ridwaan Ismaan Maxamed oo kamid ah beeraleyda deegaanka Agamsaha Ridwaan xilligan oo ah xilli cadceed ah saacaduna ay tahay 12:20 minute ayuu beertiisan ka shaqeynayaa waxa uu diyaar garoobayaa inuu tacabka wax soo saarka beertiisan uu manaafacsado isla markaana uu ka macaasho waxa uu kamid yahay dhalinyarada deegaankan iyagu ka faa'iideynaya muruqiisa xoogiisa iyo aqoonta uu beerta u leeyahay Ridwaan ayaa wax ka weydiin doona xilliga uu bilaabay in uu wax soo saarka beertiisan ama beertan uu ka qayb qaato iyo waxyaabaha ay halkan ay ka beeraan isaga iyo shaqaalaha kale kala shaqeynaya Ridwaan maxaad halkan ku haysan saacadu ay tahay 12:00 duhurnimo bal beertan imika maxaad gacanta ku haysaa maxaad ka qabanaysaa halkan waxaan gacanta ku hayaa waa yaambo waxaan ka shaqeynaa beertaydii waan yaambeynayaa dabeeto waxaan doonayaa inaan wax ku beero ya waxaan beerayaa waxa weeyaan waa koosto maxaa kale oo aad ka beertaa beerta waxaan ka beernaa tamaandho iyo koosto iyo kamsaro wax kale laakiin imika nooma bixiyaan beeraha awal berigii hore waxaan ka beeri jirnay salad dabeeto saladkii waxaa nagaga dhacay xanuunkii kadib waxa noogu sii beeray biyihii oo naga qararaaday dabeeto qaraarkaasina wuxuu noo bixin waayay saladkii dabeeto imika waxaan beernaa koostada iyadu biyaha dhanaan bay ka heshaa koostadaasaan iska beernaa imika iyo tamaandhooyin iyo waxaas waan gartay beertan imikaan kugu nimi waa beertiinni sidaad sheegtay imise saacadood ayaad ka shaqeysaa beerta waxaan ka shaqeynaa aduu ilaa 7 ilaa 6 ilaa 6 waxaanu yar fadhiisanaa 12 ilaa 2 marka waxaad leedahay qiyaastii 7 subaxnimo 12 labadaad bilowdaan adina ilaa 6 galabnimo ka waran adigu imika xilligii daada waxbarashada ku jirtaa wax ma barataa may imika wax ma barto waxbarashada waxaan kaga baxay form 4 markii aan dhameeyay dabeeto waan ka baxay waxaan uga baxay waxay ahayd duruuf beertii oo cid ka shaqeysaan jirin shaqaalaha hadda aad qabsatana shaqaalihii sida aad leedahay kaagama shaqeynayo haddii aad ilaalin weydo oo aad ag taagnaan weydana waa uu ka dhaqaaqaya marka wax walba horta ninkii la baa ilaashan kara geeljiri wuxuu xiraa Soomaalidu geel u wada jirtaa haddana u kala jirtaa ya marka ninku isagoo wixiisa haddana ku wadayo haddana eegsta doonaysi ma noqonayso ya marka waxa aniga waxbarashadeedii iga soo saaray waxay ahayd beerteedii inaan ka shaqeysto oo aan wax la soo baxo
haddii beertaadayna ay kugu filnaato waxaan malaynayaa dib ugu noqonaysid waxbarashada waa laga yaabaa haddii ay ugu filnaato waxaan sarcan aan beerana noo hagaago waan dib ugu laabanayaa haa imise shaqaale ayaad kala shaqeeyaa beertada iminka waxaa igala shaqeeya laba shaqaale igala shaqeeya ka waran macaashka beertan waa arkayaa sanad fara badan baad ku beerteen iyo koosta aad u fara badan baad ku beerteen ka waran macaash fiican ma ka heshaa wallaahi horta iminka berigii hore haa waa laga heli jiray laakiin iminka nolol maalmeedkii ma soo dhaafayso wixii cuntadii la cunayay iyo raashinkii ma soo dhaafayso iminka noloshii raashinkii baa iminka qarqiir ku sii jiraba waa maxay markaa sababta keentay in yarayso beertu waa isbeddelka cimilada iyo siirarkan faraha badan leh aan helayno ayaa noo keenaya xanuun siirarkii baa isbedelay oo siirarkaygii wanaagsanaa way naga dhammaadeen markaa siirarkan dambe ee lanoo keenaana sidii hore ee aanu doonin inooguma baxaan siirka markaad soo iibsanaysaan ma soo marisaan laab wasaaradda beeraha ma kala tashataan mise suuqun baad tagtaan oo ka siibsataan may wax wasaarad beereed horta maanu aragba intaa aan leekahay wax wasaarad beereed oo noo timiday weli indhahaygaa ma saaran ya mana aragne siirkaa dukaanada baan ka soo iibsanaa waan soo qaadanaa wax laab la marinayana maanaan arag wasaarad beereedna maanaan aragba ma isleedihiin wasaaraddii beeraha caqabadda idin haystaa u gudbiya horta wasaaradda beeraha caqabad weyn baa xaggaasi naga haysata haddii ay dhinacii sunta tahay iyo haddii ay dhinacii siidhka tahayba kama aragnabada wax noo timaada siidhka waxaa la socda xanuuno oo dawooyinka xanuunaa la socda oo saladkii markaad saa ugu buufiso waxaad arkaysaa kiyoo isbedelay kiyoo buufiso ka qurux badnaa buufintii kadib waxaad arkaysaa isagoo isbedelay oo nooc kala noqday ama cawlaa noqday ama dhegtii hoose soo caddaatay marka ciladu waa siirkan aad soo iibsanaysaan waa siirka iyo dawooyinka lanoo keenay siirarkiina horena way naga dhammaadeen kan dambana waa bilaatayo waan arkayaa beertaadani waa beer biyood oo riig baa ku taagan xilligan biyo si fiican bay ugu qulqulayaan oo waad ka shaqaynaysaa beero waxaa jira aan biyaha helin bal ka waran marka la isbarbar dhigo wax soo saarka horta wax soo saarka marka la isbarbar dhigo iskuma dhowa waayo dee nin aan biiba hayn isagu wuxuu ka fikirayaa biyihii uu cabi lahaa oo masaafo dheer uu doonanaya laakiin annagu biyihii aanu cabanay kama fikirana waxaanu ka fikirnaa biyihii aan dhulka ku waraabinayn markaa xaggaa biyaha caqabad baa naga haysata caqabadda naga haysataa waxa weeyaan biyihii naga qaraadhaaday taasina waa cilmi ilaahay dee wax kaloo cid looga cawdo oo aanu leenahay hay-adiyo waxaasi ma jirto cilmi ilaahay xagga ilaahay uma ka baryana ya laakiin marka kuwa biyaha la ee roobka oo kaliyaata iyagu sugaya waxaa laga yaabaa haddii ay hay-ado caawiyaan oo dhulkoogaasi riiga loogu taago inay biyaba ka helaan aniguhoo waad la socotaa baraha bulshada dhallinyaradu iminka farabaas bay ku hayaan dhallinyarada khayrkaaga abaa jira oo aan waxba tabcan oo beera leh maxaad iyaga u soo jeedin lahayd dhallinyarada caynkaasa ee social mediaha iyo baraha bulshada ku mashquulsan ee maqaaxiyaha fadhiya ee fadhi ku dirirka ah maxaa u soo jeedin lahayd horta kuwaasi waxaan odhan lahaa iyaga horta waxay tiraa Soomaalidu gacantaadu intay daasho unbu afkaaguna daalaa haddii aad fadhidana waa saacad kaa tagtay saacaddu haddii kaa tagtana dib kuuguma soo noqonayso adduunka waxa lagu xisaabtamaa waa waqtiga markaa waxaan leeyahay waqtigiina intaad ku ciyaaraysaan waxaa wanaagsanaan lahayd inaad wax soo saarataan ama wax beerta ama shaqaba helo oo waxaa wanaagsanaan lahayd intaad fadhiyi lahayd oo aad iska qayili lahayd inaad wax soo saarato haddaad beer leedahayna beertaada ka shaqaysato haddii aad wax kale leedahayna hawlaha kale aad qabsato maxaad caqabadaha oo beertan beeraha deegaankan haysta ee aad u gudbin lahayd xukuumadda Soomaaliland iyo wasaaradda beeraha waxaan leeyahay horta inay beeraha soo marto beeraha u timaado intaanay waxba u qabaninba ka hor waxa ka horeeya imaatinkii waxay tiraa Soomaalidu indho waxay arkaanba ilkana gooyaan markaa wasaaraddu haddii aanay beerihii iman oo aanay beerihii sidii wax yihiin arag dee waxba ma qaban karto markaa waxaan leeyahay wasaaraddii beeraha dooxa agamsaha dhibaato weyn baa haysataa haddii ay xaggaa sare tahay haddii ay xagga hoose tahay haddii ay halkan aan jooga tahayba dhibaatada haysataa waxa weeyaan saladkii ayaa ka xumaaday waxa keliya ta iminka wax laga helaana waa saladkiina xanuuna ku dhacay xanuunadii dawooyinkii loo heli lahaana ma jiraan tad ku buufsamaya ta kalena way ka sii daraysaa gajiyo haraad baana hareeraya
daawadayaal waad ku mahadsantihiin qadarka aad la socotaan telefishinka qaranka jamhuuriyadda somalilan ee barnaamijka beeraha. xamse oo cali cumar waxa uu ka mid yahay beeraleyda deegaankan agamsaha. waxaanu ku booqanay beertiisan oo uu ka shaqaynayey islamarkaana uu ka qayb qaadanayay wax soo saarka dhinaca beeraha iyo dalagyada kala duwan ee uu ku beero beertiisan. xamse oo cali, bal waxaad nooga warantaa xilligan waxaad gacanta ku haysid iyo dalagyada aad beeraysidba. xilligan waxaanu beeraynaa koosto waana laga shaqaynaya oo la baaqbaaqaya. waxaanu beernaa koostaan beernaayo, waxaanu beernaa salad, waxaa la beeraa basal, qaji, geedgaabkaasaa la beeraa. ya waan gartay. oo markuu halkan aad ku beertaan uu soo baxo xageebaad u iibgeysaan? waxaa loo iibgeeyaa halkan baa lagu iibsadaa. dad hargeysa ka yimaada dumar ayaa imaada. xagan aduu dadkaasaa qaado hargeysa geeya. marka waxaad leedahay anagu ma iibgeyne dad dilaaliina ayaa noogu yimaada beertayadii tooska ugu iibiya suuqa hargeysa yaa halkan tooska uga qaata. bal ka waran macaashka ay beertu leedahay, dhanka dhaqaalaha, dhanka qoyska, dhanka naftaada, bal ka waran. dhaqaalaha waqtiba waasi mar aad dhaqaalo ka hesho mar aad waxba ka weydo waa sidaas. bal ka waran xilliga ay kugu fiicneed bal macaashka ay leedahay iyo xilliga ay magaranaysaa aynan macaashka lahayn, bal nooga waran xiyada. kolba say kugu baxdan weeyaan. kolba say kugu baxdo. kol xanuunaa imanaya, kol waxaanad gelinayn baa imanaya, kol corona la sheega doona raga dhaca beeraha u bixinaba corona. ya duu doona saar kuma baxaba. adigu imisa sano aad ku soo jirtay beeraha iyo wax soo saarka? intaan jiray waan ku soo jiray. bal ka waran dee marxalado badan bay kula soo martay beerta. ya marxalado badan bay kula soo martay. bal dadka mid iyo laba ugu taaba waxaad soo joogtay. beeru faa'iidana ma lahe. waa kaasoo waa tacabka waa soo lagu daalaa. maxaad ugu baaqi lahayd dhalinyarada iyagoo aan waxba tabcan ee iska fadhiya maqaaxiyaha xukuumadda somalilan haddii aad dhanka cilmiga beeraha aad ka dalbanaysid, dhanka waxqabadka haddii aad beertadan doona wax laga qabso, marka maxaad u soo jeedinayd? dadku inay dhulkooda kala soo baxaan, dawladduna ay taageerto ama xagga biyaha haato ama riiga ka haato ama dooxyada u xidha haato. horumar badan bay u baahan tahay ummaddu. ya laakiin wax soo saar haddii wax walba dadku helaan dhaqaale wax walba soo saar karayaan. marka waxaa leedahay beeraleyda hala maalgeliyo. hala maalgeliyo haddii beertadan maalgashi lagula yimaado oo qof lacag haysta oo ku yiraahdo waan ku maalgelinayaa, maad adigu ogolaan lahayd? oo ku maalgelinaya haddii ay faa'iidada ku jirtaan gade. ya markaan eega haddii dantayda ku jirto waa ogolaan karaa. waxaan odhan lahaa inay dalkooda wax u bartaan, ama cilmi ha haato ama dhul ha haato, inay dhan walba adugu anay fadhiyo inay tabacdaan de. daawadayaal waxaanu ku guda jirnaa barnaamijkii beeraha ee telefishinka qaranka jamhuuriyadda somalilan. ismaaciil waxa uu ka mid yahay dareewalada ku shaqeeya gaadiidka cagafta ee ka qayb qaadanaya wax soo saarka beeraha islamarkaana qodaya beeraha. dhanka kale waa beeraleyda deegaankan galooley ee degmada gabiley. ismaaciil waxa aanu weydiin doonaa xilliga uu bilaabay wax beerista iyo darawalnimada gaadiidkan, annagoo ku hormari doonaa inuu bal nooga warramo xilliga uu bilaabay inuu dareewal noqdo maadaama uu ahaa beeraley uu isku bedelo dareewal cagafta ka shaqeeya. bal xilligaa bilowda nooga war ismaaciil. waxaan idinka warramayaa horta 2 sano aan ka shaqaynaya cagaftan. 2daas sano dee waan isku honay dareewalida waan bartay. markaa 2dii sano horta ka shaqaynayay sanadkan oo abaar baa nagala kulantay dhulkan. waanu shaqaynaynaa haddana beeruhu dawo maba soo baqlayaanba. dadkii waxaad kaala hor imanayaan lacag la-aan. dadkuna dawo dad reemiyo aan meel lagu shaqo tegayn, waxna dhulka kaleba soo baxayn. wax soo saarka in dhulka la iibiyo way ku yartahay. dhulkana waad arkaysaan midhahan xitaa tamaandhadu dee way ku yartahay oo idinkuba waad soo wada marteen waad arkaysaan. dadku basal ay beertaan male halkani. horta deegaanka galooley aad buu ugu sii liitaa horta wax soo saarka noocaas.
habase yeeshee qofkii beertii baad u qodaysaa haddana wuxuu ku leeyahay dalcag ma hayo horta waanu qodnaa uun intaa ana waanu dadaalnaa uun dadaalkaa waa sidaasoo dhulkina waad arkaysaanoo waa meel la waa tan case imanka beertan aan ka soo baxay waa kolkii saddexaad een qodo dee kolka marka roobabkii diraacda amaba xagaaga ayaa hore marwuu da-ay markii dambe ee de beeruhu wixii waa inuu dee roobka hagu istaba maraa magaranaysa oo dee hawsh beri ku celiyaad beerta ka baxdaa haddana tii kala soo qodaayo kii baan jirin mar kale unbuu doo markii dambe u dii waayey imanka beeradan aad arkaysaana midhow ka yar muuqdaan roobkii diraacdii daay ku dambe kagama dabadiin raadkiisa waad arkaysaa mayba haddaad dhex gallo raadkiisaynu ka garananaa inaynay wax dambeba ka dabadiin horta waxaasaa dhacday magaranaysa abaartaasaa jirta haddana waa alxamdulilah waa dee waa isbabedelku u jiraya maaha kolla abaar baymanaysa kolla barwaaqaymanaysa waa dee isdaba joog saasay weligeed baan jirta iminka xilligaynu ku jirno waa xilligii karanta roobab badan baa deegaanka ka da-ay marka roobab ku filamaana deegaanka ka diin iminka ma xumo oo waa kan waa qabow waad arkaysa waa kaa siirkina waa kaa dee doogii yaree adhiga la odhan jira waa kaa soo baxay markaa dee shaal horta aad bay u qabow dhulku qabooyay iminka halkaan joogno goobtana joogno aad bay u fiicantay imise saacadood baa shaqaysa adugu markaa dareewalnimada aad ku shaqaynaysid ee cagaftan awdid dee yoomka waxaad shaqaynaysaa 7 saacadood dee labana waad yar fadhiyaysaa waa ilaa labada waad dhigaysaa muug markaasaas 7 saacadood ma isku soo koobta horta yoom markaa dee kuleyl baa cagaftii ma kuu kululaanasaba maxaa ugu badan oo aad shiniyeysaan amaba siidhka aad ku ridaa deegaankanu yahay siidhkan deegaanka wax laga beeraa waa garowgan iyuu horta u badan yahay arabakina waa la beeraa habase yaase meesha waxaa yimid arabakadii waxa celcelinaya dee kole roob la-aanayso ma baxaso waa sitaa markaynu usoo noqonno dhanka beeraha iyo wax soo saarka alabakyada iyo marka laga yimaado garowga maxaad kaloo aad deegaankan aad ka qabataan oad ku beertaan basal baa lagu beeraa tamaandho way beeraan habase yeeshee halkani kuma badna waxaa ku badna iminka deegaankan allay baday iyabaa ugu sii badan basalaha iyo halkaa iyo xabxabeeba halkaasi beeraa si deegaankan galooli laydhaa deegankuma intaad marmarayseen waad ila aragteene intaad kusoo aragtay mad malaysaan wax aad indhahiinu qabtaan waxa ugu badan aanu aragna waxaan haruur iyo haruurka ugu badnaa haruurkaasaa ugu badanoo waa waxaan isla wada arkano tamaandhadu way ku yar tahay basashana way ku yar tahay maxaa markaa ugu wacan waxa ugu wacan horta roob la-aan baa jirta biyuhu dhulkuna waa adag ciiduna waa adagta haddii ciidila xayaan dadku kaba niyad jabeen way beeraanay way niib jir adigu ismaaciil cabdicilay ahaan beeraleyda imise aad ku soo jirtay imise sana ayaad beeraha ka shaqaynaysa aan beeraha waan ka shaqaynayay intaan deganaa imika guriga waxaan deganaa 20 sano 20 sano maan beeraha horta aanu aad u dhex galay se dee waan iskaga wanaagsan waa nagan iska degan waan iskaga wanaagsan xagga deegaanka dee waa nabadna waynu haynaa wallaahi aad baanu iskaga wanaagsannahay marka laga yimaado caqabadahan ida haystaa maadaama aad sheegtay inaad 20 sano aad beeraley ahayd bal ka warran faa'iidada aad ka heshaan haruurkan iyo galeydan faa'iido male horta anu waxba kama helo haruurku u baxaa wuxuu noqonayaa 500 wad niyad jaba saaba xitaa wixii waxaa xumaanaya inay niyaddii waxa kaa xumaynaya markaa wixii hadbeetay waxaad ku soo qaadatayba weydaba wad kaga dhex timaada waa arki ya degtaraad ku guraysaa waad waad daalaysaa halkaasay niyadjabir ka qaadaysaa waad jabidee imika hadduu wixii aad soo saartay haddii dee aad lacag dadku horta waxay ugu hama bedela markay lacag helaan markaa kale aad weydo lacagtii aad weydo hamijo baa halkaa ka imanaya inuu qodaalka wax soo saarkaaguna markaasuu yaraanaya ismaaciil dhinac beeraley baad ka tahay dhinacna dareewal baad ka tahay cagaftan bal labada shaqo iyama adiga naftaada u wanaagsan iyo qoyskaaga dhanka macaashka cagaftu aad bay horta u dhib badantay dhibaatadeeda haddana badantay dee waxsan wayo habeenkii baad soo jeedaysaa maalintii waad shaqaynaysaa adugu dee horta wax soo saarku wuu iska ficanya ninkii horta fadhiya unbaa ugu liitay dadka ninkii socdaado kolley wuu helayaa niyaddu aad bay ugu ficnaanaysaa guud ahaanba daawadayaal intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii beeraha ee telefishinka qaranka jamhuuriyadda somalilan waad ku mahadsantihiin qadarka aad daawateen barnaamijka iyo taageerada aad u haysaanba wayna kaga mahadcelinaynaa barnaamijka iyo sida aad ugu xidhan tihiinba barnaamijka waxaa idiin soo saaray anigoo cabdiqaadir cabdulaahi nuura dhanka kamarada waa cawil cabdi kaahin intaynu barnaamij ka lamida ku kulmi doonno
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ciidena hodanka mawsara kacnaayo beeraha ma saracna kacaganaane ciidena hodanka mawsara kacnaayo beeraha ma saracna ciidena hodanka mawsara kacnaayo beeraha ma saracna ciidena hodanka